بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahadle marka xigtana waxaan maanta shirkada jiraayid maanta aan isku keenay wuxuu daaran yahay in dadweynaha la socodsiino faldambeed kasta dhaca sida waxa amray taliyaha ciidanka booliiska in faldambeed kasta oo culus la socodsiino dadweynaha magaalada Hargeysa taariikh markii ay 23 bishii 2019 abaarlamada habeenimo waxa baabuur weyn oo UD ah laga dhex ka haystay magaalada Hargeysa waxa ka haystay kirishbooyigii baabuurka la socday isla markii warkaasi soo gaaray ciidanka booliiska waxa uu taliyaha ciidanka booliisku amar ku bixiyay ama ku siiyay dhammaan ciidamada fadhiyada booliiska ay ku sugan yihiin inay qabtaan baabuurkaasi maadaama uu soo maray galka Wartamaxaad oo ah soonaha qaybta booliiska Oodweyne iyagii ayaana gacanta ku dhigay baabuurkaas weyn ee UD ah isla shalay 9kii subaxnimo waxay ciidanka booliisku qabteen baabuurkii lala baxsaday ee UD ah waxaanay ku qabteen dooxa gawaanle oo 30 kiiloomitir xagga waqooyi ka xiga Oodweyne isagoo bad qaba waxaana baabuurkaasi qabtay ciidanka booliiska ee Oodweyne iyagoo ciidankii booliiska ah ee halkan ka diray taliyaha ciidanka booliisku iyo dhibanayaashiiba ay dooxaasi iskugu tageen iyagoo wada socda baabuurkiina gacanta lagu hayo oo bad qaba taasi waxay marag muujin cad u tahay sida ay ciidanka booliisku diyaar ugu yihiin faldambiyeed kasta oo dhaca ka hortagiisa soo qabashadiisa si ay ciidanka booliisku gacanta ugu dhigahayeen ciidanka booliisku si aad iyo aad ayuu taliyaha ciidanka booliisku uga amaanay soo qabashada baabuurkaasi waxaana arki kartaan baabuurka xalay la xabay labadii habeenimo ee haddana isla 9kii subaxnimo ay ciidanka booliisku qabteen baabuurkiina halka buu yaala xerada waana arki doontaa taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si adag amar ku bixiyay in la daba galo waa lagu maqan yahay baabuur iyo ciidan baa ku maqan insha Allah bismillaahir kariim waxaan rajaynaynaa in gacanta lagu soo dhigo si maxkamadda lagu horgeeyo waxaana dadweynaha si bug lagu codsanaynaa inay falalka noocaas ah ee foosha xun leh ee dambiga ciqaabeed keeni karaya inay ka waantoobaan oo aanay ku kicin intaas ka bacdi taariikhdu markay ahayd 14 bishii 2019 waxa dambi ka dhacay magaalada Wajaale askari booliiska ayaa si wada kaca isagoo garashadiisa iyo maankiisa leh wuxuu u dilay marxuul ayuu halka ku dilay Soomaaliland ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkii faldameedka geystay iyo labadii askari ee la socday ee burcadmada geystay iyaguna way xiran yihiin waxaana markiiba loo gudbiyay xabsiga dhexe Hargeysa askarigii dambigaasi galay waa qiraal sida uu qabo qodobka 68 ee xalka ciqaabta waxaana kiiskoodii loo gudbiyay maxkamadda iyo xeeraaninta awoodda dawladda si degdeg ah ayaana loo horkeeni doonaa ciidanka falkaasi geystay oo maxkamadda lagu horgeeyo iyadoo lagu qaado dawladda dambiga u geystay markii dilku dhacay ka bacdi waxa Wajaale ka dhacay banaanbax ay dadweynuhu sameeyeen hase yeeshee ciidanka booliisku waxay ka hortageen oo ay si adag u xakameeyeen si aanu magaalada shoobrahaasi ugu faafin magaalada Wajaale oo ah magaalo ganacsi dadkii shoobraha sameeyay waana cid kalena uga faa'iideysan kula soo dhaxdhooban maadaama oo ay tahay meel ganacsi oo ah isha Soomaaliland ay la ku hayso si adag ay uga hortageen taliyaha ciidanka booliisku si adag ayuu u amaanay ciidankii booliiska ee saldhigga Wajaale ee sida xilkasnimada leh ee waaya aragnimada leh waxa kameeyay banaanbaxaasi ee ku faafi lahaa magaalada isagoo banaanbixi socdo ayaa niman ka tirsan ciidanka booliisku waxay farasaan ku sameeyeen qof dumar ah oo kamid ahayd kuwii banaanbaxa sameeyay iyadoo baraha bulshadana si khaldan loogu faafiyay falkaasi taliyaha ciidanka booliisku wuxuu markiiba amar ku bixiyay in la soo qabto ciidankii farasaaray islaantaasi waana la soo qabtay way xidhan yihiin waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeeraaninta awoodda u leh qaadista dambigaasi taliyaha ciidanka booliisku mar kasta oo khudbad jeedinayo ama uu ciidanka la hadlayo hadday noqoto af iyo hadday noqoto qoraal wuxuu ciidanka booliisku ku booriyaa inay ilaaliyaan xuquuqaha dastuuriga ah ee ay muwaadiniintu leeyihiin sida ay qabaan qodobada 25 26 27 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si mug leh u amaanayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee xalaasha ah ee sida xilkasnimada leh ee wanaagsan oo la shaqeeya ciidanka booliiska ilaahay casaawajlaha ayna dad islaam ay naga dhigay iyo mahadle waxaana biliiska dawladda Soomaaliland iyo biliiskeeda baan ugu mahadnaqaynaa sidii diiranayd ee ay uga hawl galeen gaadhiga soo qabashadiisa
intaanaan halleeyay gaadhin bay waxayba gacanta lagu dhigay si mucjisaaba loo qabtay waddanka oo dhanna biliisku isku xidhay aad iyo aad baanan uga mahadnaqaynaa waana mahadsan yihiin si sharaf lanaba u soo qabteen hawlgalkooduna mid cajaa'ib leh oo la yaab labu ahaa gaadhiga waxa lala baxay 3 habeennimo 7diina biliisku gacanta ayay ku hayeen ayagoo ku hareeraysan markiiba si degdeg ah u qabteen